Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada barnaamijkeennii Ma ogtahay? Ma ogtahay in waddanka Indonesia uu ka kooban yahay in ka badan 13,000 oo jasiiradood, isla markaana uu yahay ka ay ku nool yihiin Muslimiinta ugu badan. Xornimadiisana waxa uu ka qaatay waddanka Holland sanadku markuu ahaa 1947. Ma ogtahay in gabadhii ugu horeysay ee Muslim ahayd ee si dimuqraadi ah loogu doortay jagada ra'iisul wasaarenimo ee ahayd Benazir Bhutto oo u dhalatay waddanka Bakistaan? Gabadhani waxay ra'iisul wasaare noqotay 2 jeer oo kala ah 1988 ilaa 1990, markaas oo ahayd 35 jir, iyo weliba 1993 ilaa 1996, waxayna labada jeerba xukunka uga degtay kacdoon ka dhanka ah shacabka. Ma ogtahay in waddanka adduunka ugu dhulka yari uu yahay kan la yiraahdo Vatican, waxaana leeyahay baaxad dhuleed oo dhan 44 hektar? Ma ogtahay in boqorkii dunidu ugu da'da yaraa 1986 uu ahaa King Mswati, xilligaas oo da'diisu ahayd 18 sano jir? Boqorkani waxa uu haystay waddanka Switzerland oo ka mid ah 5 dal ee ku yaala Koonfur Afrika. Ma ogtahay in waddankii ugu horeeyay ee Afrikada Madow ee xornimadiisa qaata uu ahaa waddankii loo yaqaanay Gold Coast ama xeebtii dahabka, haddana loo yaqaan Ghana, kaas oo madax-bannaanidiisa helay sanadku markuu ahaa 1957? Ma ogtahay in socdaalkii ugu dheeraa ee nebi galo inuu galay Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, waxaanu habeen qura ku socdaalay Maka, waxaanu tegay Qudus, halkaas oo uga sii gudbay samada 7aad, waana habeenkii Ilaahay ummadda Islaamka ah ku waajibiyay salaadaha 5 ah. Ma ogtahay masjidka barakaysan ee xaramku inuu yahay kii ugu horeeyay laga dhisay dhulka korkiisa, waxaana dhisay labadii nebi ee is dhalay, Nebi Ibraahim iyo Nebi Ismaaciil calayhi salaam. Masaajidkii labaad ee la dhisay inuu ahaa Masjidu Qudus oo uu dhisay Yacquub calayhi salaam. Ma ogtahay in ninkii koowaad ee sameeyay laambadda uu ahaa Thomas Alva Edison oo dhalasho ahaanna Maraykan ahaa? Edison markii uu ku jiray hawshan waxaa la sheegaa inuu guuldareystay 999 jeer oo uu guulaystay markii 10aad. Ma ogtahay in suurad Qur'aanka ka mid ihi oo aayadaheedu dhammaantood uu ku jiro magaca Allah ay tahay suuratu Mujaadala ama suuratu aan u naqaano Qad Samic? Ma ogtahay in gacanka loo yaqaano Suez Canal ama gacanka Suez ay samaysay dowladda Ingiriiska, iyadoo ay samayntiisuna qaadatay muddadii u dhaxaysay sanadku markuu ahaa 1857 ilaa 1869? Intii xilligaas ka horeysay gacanka Suez meesha uu ku yaala waxay ahayd beri maraakiibta ay ka imaanaysay Yurub oo socdaalaysay Aasiya, waxayna ka wareegi jireen Koonfur Afrika, safarkaas oo qaadan jiray waqti badan. Ma ogtahay in sahamiyihii Christopher Columbus uu yahay ninkii daafuray qaaradda Ameerika sanadkii 1492, isagoo ugu horeyn helay jasiiradda Bahama una bixiyay San Salvador? Haddaba intaas ayuu ka egyahay mawduuceena. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.